waxaa maalinnimadii shalay caasimadda labaad magaalada Bergen ee dalka Norway aan kula kulmay gudoomiyaha xisbiga Socialistiska Venstre Party SV xilli uu qayb ka ahaa olole baraalan oo dhinaca doorashada xisbigiisa ka wada guud ahaan dalka Norway gaar ahaan magaalada Bergen. Gudoomiye Audun Lysbakken ayaan ugu horreyn weydiiyey inay jiraan dad badan oo soo galooti ah kuna sugan qaaradan Yurub kuwa oo wajahan dhibaatooyin dhinaca sharciyada marka si gooni ah loo eego Norway oo ilaa ay hadda dad badan oo qaxooti ah aysan ku haysan sharciyadii ay u baahnaayeen. Qorshaha arrintaas ay ka leeyihiin oo ay doonayaan inay wax ugu qabtaan dadka soo galootiga ah ee doonaya sharciyada inay helaan. SV vill ha en invandringspolitik baserat på solidaritet. SV waa xisbi ku dhisan wadajirka iyo midnimo u dhaxaysa bulshada. Sidaas daraadeed annaga ka xisbi SV ahaan waxaan leenahay dadka soo galootiga ah ama dadka qaxootiga ee magangalyo doonka ah in la siiyo magangalyada ay u baahan yihiin. Waxaan kale oo aan leenahay qaybta UN-ka dadka qaxootiga loogu talagalay inay soo qaadato Norway oo qaxooti ahaan loo aqbalo. Si aad ah ayaan uga xunnahay in 8 sano ee ugu dambeysay la adkeeyay dadka soo galootiga ah isla markaana waxaa muhiim ah dhalinyarada Norway ku kortay inay halkan ku sii noolaadaan oo aysan wajihin dhibaatooyin dhinaca sharci kala noqoshada. Sidoo kale tan iyo markii uu yimid cudurka faafa ee coronavirus adduunka dhan waxaa ku yimid hoos u dhac dhaqaale qaasatan suuqyada Norway kaas oo saameeyay sidoo kale gaadiidka. Tallaabada ay ku soo celinayaan dhammaan dhaqdhaqaaqyada adeegyada bulshada si kor loogu qaado dhaqaalaha dadka reer Norway ayaan mar kale hordhigay. Forskjellene i Norge har økt veldig de siste årene. De rikeste drar kraftig ifra. Folk flest har stått ganske stille, og det blir flere fattige. Kala duwanaanshiyaha dadka way sii korortay. Dadka hodanka ah way sii hodmeen, dadka faqiirka ahna way sii faqiireen. Kuwa kalena halkoodii hore ayay weli taagan yihiin. Sidaas daraadeed, annaga ka SV ahaan waxaan rabnaa in aan arrintaas wax ka qabanno oo dadka taajirka ah aan ku kordhino canshuuraha ay bixiyaan. Waxaan kale oo aan rabnaa in la bixiyo canshuuro ku aadan qaybta dhaxaltooyada. Waxaan kale oo aan rabnaa in aan xooga saarno sinnaanta dhaqaale ee dhinaca bulshada. Haddii la rabo in la baabi'iyo ama hoos loo dhigo saboolnimada waa in qoysaska carruurta haysta in la gacan qabto ayna helaan lacago ku filan oo ay ku noolaadaan. Sidaas awgeed SV wuxuu codsanayaa in la kordhiyo lacagta kaalmada ee carruurta la siiyo isla markaana waxaan rabnaa in aan kordhino waddanka oo dhan lacagta ceyrta. Waxa kale oo aan rabnaa in aan dib u soo celino waxyaabihii la bedelay 8 sano ee ugu dambeysay oo dhinaca dhaqaalaha. Waxa kale oo aan rabnaa in bulshada oo dhan inay shaqo wada helaan lana kordhiyo shaqooyinka lacagaha yar. Waxaan kale oo aan rabnaa in aan ka hortagno dhibaatooyinka haysta tagaasida oo dhinaca dawladda kaga yimid. SV wuxuu joojin doonaa dhibaatooyinkaas lagu hayo tagaasida. Arbeidsplasser for mange, men som kan bli totalt rasert av regjeringens taxereform. Og SV vil stoppe taxereform. Ugu dambeyntii Audun Lysbakken ayaan wax ka weydiiyey qorshahooda hanaanka waxbarasho, caafimaadka iyo guriyeynta doorashada kadib. Vi mener det er viktig at alle barn får delta i skolefritidsordningen, og derfor så vil SV... Annaga ka SV ahaan waxaan rabnaa in carruurta iyo dhalinyarada inay helaan iskuulo fiican oo ay ku faraxsan yihiin. Hadda waxaa jira carruur iyo dhalinyaro aan ku faraxsanayn iskuulada iyo maadooyinka loo dhigo. Sidaas daraadeed waxaan rabnaa in ilmaha loo dhigo maadooyin kala duwan iyo inay helaan waqti ay casharada iskuulka uga shaqeeyaan oo waxbarashadoodana lala socdo si ardayda inta badan waxbarashada ay natiijo wanaagsan uga keenaan oo ay ku baasaan. Caafimaadka iyadana waa in aan ka hadalnaa dhibka ugu weyn waxa uu ka jira qaybta daaweynta ilkaha oo qaali ah. Sidaas daraadeed waa in daaweynta ilkaha lagu daraa qaybta caafimaadka oo dadka laga caawiyaa. SV ahaan waxaan rabnaa in ilmaha iyo dadka waaweynba looga dhigo daaweynta ilkaha si bilaash ah. Iyadoo ay sidaasi tahay waxa kale oo aan rabnaa in ilkaha laga dhigo sida adiga oo isbitaalka caadiga ah aadaysid oo haddana aad qayb yar bixinaysid. Sidoo kale waa in control lagu qabtaa suuqyada guryaha oo faraha ka baxay. Haddii aan rabno waan yareyn karnaa kala duwanaanshiyaha. Og så må vi ta kontroll over et boligmarked som har løpt fullstendig løpsk. Hvis vi vil, så kan vi få forskjellene ned i Norge.